ግብጽ ጦር ጋር ተመሳጥሮ በኢትዮጵያ ጦር ላይ ለመዝመት መዘጋጀቱን የታወቀው ነገር ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርም ለዚህ መዘጋጀታቸው የተሰማ ነው። መጥፎ ጎረቤት ሆኖ የቆመው የሶማሊያ መንግስት የአሜሪካና የግብጽ ጦር ወደ ድንበር እንዲሰፍሩ waxaana wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta waad joogtaanba qaybaha kala duwan ee warbaahinta dalkaasi Itoobiya ayaa bilaabay dacaayada iyo waliba propaganda iyo isku dayo ay ku doonayaan in ay jahada dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya leexiyaan iyaga oo sheegaya amaba haatan bilaabay waxay ugu yeedheen dagaalka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu ku soo qaaday dalka Itoobiya waxaana ay soo qaadanayaan warbixino iyo warar iyaga u gaara oo ay ku sheegayaan in dhamaantoodba madaxweynaha Soomaaliya uu isagu yahay aabahooda warbaahinta kala duwan ee dalka Itoobiya gaar ahaan qaar ka mid ah warbaahinta dawladda iyo waliba warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxay ka hadlayaan in dawladda Soomaaliya hoggaankeeda cusub ama madaxweynaha cusub ee Soomaaliya haatan uu isagu u tafaxaytay sidii loo burburin lahaa Itoobiya isaga oo isticmaalaya xoog xeelad iyo waliba xirfad kaste oo lagaga takhalusi karo Itoobiya waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana buddhiga u ah ayay yiraahdeen kooxda lagu magacaabo TPLF oo ay sheegeen in uu saaxiib horay ula ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku doodayaan oo ay leeyihiin socdaalkii uu ku tagay dalka Masar iyo sidoo kale kulamo uu la yeeshay saraakiil ka socota dalka Masar iyo waliba saraakiil kale oo Carabeed ayaa dhammaantoodba waxa ay iska kaashadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidii loo burburin lahaa dalalka Itoobiya iyo Eritrea ma aha oo kaliya Itoobiya dalalka Itoobiya iyo Eritrea waxa uu dalbaday bay yiraahdeen dhaqaale iyo saanad military iyo ciidan waxaana u ballan qaaday dalalka uu booqday ee uu tagay waxa ay markaasi soo qaadanayaan durba waxa Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaajiyay tallaabadii ugu horeysay oo ah weerarka kooxda TPLF ay qaaday sidoo kalena waxa ay leeyihiin waxa uu bilaabi doonaa dhaqdhaqaaqyo kale oo ay leeyihiin waxa ay qayb ka yihiin duulaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warbaahinta أحمد بن هذا مقال يرو كوبن وأنسوق هذا የመቀሌው ድንኳን ሰባሪ የሶማሊያ አዲሱ መሪ ሐሰን ሼክ መሐመድም ጊዜው አሁን ነው ብሎ ዚያድ ባሬን ለማስታወስ ከአሜሪካና ግብጽ ጦር ጋር ተመሳጥሮ በኢትዮጵያ ጦር ላይ ለመዝመት መዘጋጀቱን የታወቀው ነገር ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር ለዚህ መዘጋጀታቸው የተሰማ ነው። መጥፎ ጎረቤት ሆኖ የቆመው የሶማሊያ መንግስት የአሜሪካና የግብጽ ጦር ወደ ድንበር እንዲሰፍሩ መጠየቃቸውን ተከትሎ እርሱም ፍቃዱን ሰጥቷል ነው የተባለው። ህወሓት ጦርነቱን ልክ ሲጀምረው ጠብቀው አሁን አሜሪካና ግብጽም አልሸባብን ለመምታት በሚል ሰበብ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየገሰገሱ መሆኑን የተሰማው ታዲያ የሚበላኝና ሞራ ሲዞረኝን የማውቅ ያለው ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርም ሩሲያ ቻይናና ቱርክ ያስታጠቁትን አይምሬ መሳሪያ ታጥቆ እንደ ንስር ድንበሩን እየተጠባበቀ ከኃያላኑ ጦር ጋር ለመጋፈጥም ተማምሏል ነው የተባለው። ህወሓት ይሁዳን ያስናቀባ እንደሆነ የውጭ ጠላቶችን እንዲተሸክሙ ሲመጣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጨረሻውና የፍጻሜ ያለውን ጦርነት ለማድረግ ምሏል ምን የተባለው። ታዲያ አሁንም ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ቁጭ ብለው ግን ሌሎች ባንዳዎችም ተፈጥረዋል። ጦርነት አንፈልግም እያሉ ነው። በውስጥ ያሉ ባንዳዎችም ጦርነት አንፈልግም እያሉ አይናችንን ተጨፍነን ኢትዮጵያን እንደ ድሃ ቅርጬ ከፋፈሏት ለማለትም ሲጋጋጡ እየታዩ ነው። ከወልቃይት ግንባር ግን ይህ ጦርነት በሰላም የማይቋጭ ከሆነ ተብሏል። ይህ ጦርነት በሰላም የማይቋጭ ከሆነ ነካክቶ መቶ የለም የፍጻሜ መሆን አለበት በሚል ተማምሎ ኢትዮጵያዬ ካንቺ በፊት እኔ ብሎ ተነስቷል ነው የተባለው። እኛም ኢትዮጵያን የነካየል ኩሁንጎበ ከድመርኪ ኢትዮጵያ አይ ሄሸይ ታገራ ዓለሚያ መዳሕወይና ሐሰን ሼክ መሐሙድ wuxuu mar walba ka shaqaynaya sidii Ethiopia ay u noqon lahayd ama ay uga mid noqon lahayd dalalka fashilmay sida Soomaaliya oo kale. Xasan Sheekh wuxuu dalalka Mareykanka iyo Masaarida iyo kuwa kaleba ka codsaday
ciidamo kuwaasi oo hadda sida ay sheegeen ku soo wajahan xuduudda deegaanka Soomaalida waxay yiraahdeen tirada ciidamada USA ee ay suuragal ka tahay in ay yimaadaan madaxweyne xasan sheekh ay Mareykanku u ballan qaadeen ee imaanaya xuduudka waa ilaa iyo 500 oo askari oo Mareykana oo kuwii indhaha buluuga lahaa waxay yiraahdeen xasan sheekh ayaa taas sabab waxa uu oga dhiganayaa in ay ka caawiyaan dalalka reer galbeedku la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee ay al-shabaab ugu horeyso muhiimadda waxa weeyaan in Ethiopia la burburiyo oo ay noqoto Ethiopia dal lagu kala yaacay xuduudda ugu weyn ee hadda la isticmaalayaa waa kooxda TPLF oo durba uu xasan sheekh noqday qofka isagu sida cad u taageeraya oo doonaya in Ethiopia ay halkaasi ku burburto nuxurka turjumaada waxaan uga mahad celinayaa oo iska leh mahadiha ka gaadhay Nuur Maxamuud Sulub oo isagu intaasi turjumaada nuxurka keenay siday dooniba ha noqotee warbaahinta kala duwan ee dalka Ethiopia ayaa waxa si cad ay u hadalhayaan dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyo sidoo kale xurgufta ama cadaawada ay sheegeen iyagu in dawladda Soomaaliya ee cusub ay Ethiopia ula banbaxday waxay si cad u sheegayaan in Ethiopia ay wajahayso khatar iyo xaalado halis ah oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan oo Soomaaliya ay ugu horeyso waxay ku doodayaan in dawladda cusub ee Soomaaliya ee garwadeenka ay ka yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi aar in ay durba bilaabeen ololayaal lagu burburinayo dawladda Ethiopia iyaga oo kaashanaya dawladaha cadawga soo jireenka ah ee Ethiopia waa sida ay hadalka u dhigeen iyo dalalka reer galbeedka oo Mareykanku safka hore uu kaga jiro kuwaasi oo sida ay sheegeen haatan ay Soomaaliya u noqotay wadada loo marayo burburinta madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu garwadeen ka noqday bay yiraahdeen sidii Ethiopia dhulka loola dhici lahaa oo ay u noqon lahayd gebi ahaanba mid meesha ka baxda waxa xusid mudan in qaar ka mid ah warbaahinta kala duwan ee afka xabashida ku hadashay ay aad u wadwadeen maabab iyo maxaan ku yiraahdaa khariirado ay ku sheegayaan in Soomaaliya ay doonayso in ay qaadato kala badh Ethiopia yani waa wax lagu abaabulayo dadka Ethiopiaanka ah waxa la sameeyay maab kala badh oromada ah ama wixii adigu ka rogan meesha la yiraahdo Awaash waa Addis Ababa duleedkeeda qiyaastii 120 kilomitir masaafo aan maaragtay u jirta Addis Ababa ayaa waxa ay yiraahdeen waa dhulka ay doonayaan Soomaaliya inay qaataan haddii maanta ay dhacdo in ay burburto dawladda Ethiopia ee jirta Tigray waxay qaadanayaan intaas axmaaro canfar iyo in kale oo lagu daray Soomaaliyana waxay qaadanaysaa deegaanka oromada iyo in kale oo lagu daray yani deegaanka Soomaalidu isagu yani meeshaba kuma ayna darin marka yani Ethiopia basaasa loo kala qaybsanayaa bay ku leeyihiin waa qorshe la dejiyay oo ay tahay in laga hortago oo ay dadka Ethiopiaanka ahi ku dhintaan oo ku mitidaan oo Ethiopianimadooda ay ku difaacaan waxa alla mahadiya in maanta Soomaaliya oo aynu ogeyn 30 sano ka hor wixii Ethiopiaanka ay isla mareen in maanta Ethiopiaanki ay leeyihiin Soomaaliyana burburinaysa oo nagu soo duushay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay madaxaagu hareego marba haddii Ethiopiaanki ay taagan yihiin xasan sheekh baa dalka naga burburinaya waxa doontaba ahaw iska noolow baan ku leenahay cadawgaagan u noolow የመቀሌው ድንኳን ሰባሪ የሶማሊያ አዲሱ መሪ ሐሰን ሼክ መሐመድም ጊዜው አሁን ነው ብሎ ዚያድ ባሬን ለማስታወስ አሜሪካና ግብጽ ጦር ጋር ተመሳጥሮ የኢትዮጵያ ጦር ላይ ለመዝመት መዘጋጀቱን ይታወቃል።